Assalaamu calaykum asxaabta ku xiran Jiil Xirfad ku soo dhawaada muuqaal cusub kaasoo aan kaga hadlayno qaabka loo barto Memo Cion-ka iyo qaabka loo baaro dhammaan xogtaas oo aad laba qaybood aan u qaybiyey qayb aad ku baranayso mobile iyo qayb aad ku baranayso laptop marka waxaan ku horeyn doonaa qaybta mobile-ka marka haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir haddii aad hore noola joogtayna muuqaalkan like saar muuqaalkan waxa kale oo aan ku bixin doonaa sharad kaasoo ah $1 oo lacag ah haddii aad doonayso inaad ka qayb qaadato sharadkaas lambarada xagga dambe ee muuqaalka ku yaala ayaad dooran doontaa kadibna commentiga ayaad ku soo qori doontaa laakiin muuqaalkani waa inuu gaaro 500 oo like oo aad saartaan haddii 500 aad saartaan kadib ayaan bixin doonaa lacagtaasi anigoo ku soo diri doonaa natiijadana aan ka shaacin doono barteena Telegram Jiil Xirfad halka haddii aad ku jirna halkan taabo kadib saas ayaad ugu soo biiraysaa marka hadda waxaan bilaabi doonaa muuqaalkeena ugu horeyn waxaan sharixi doonaa waa maxay Memo Cion si arkisaan halkan waxaan ku soo diyaarsaday xog yar oo kooban xogta marka aad fahanto kadib ayaad muuqaalkan daawan doontaa haddii uu muhiim ku noqdo marka in badanna waa aad iga sugaysaan muuqaalkan oo waqti uma helin laakiin hadda ayaan diyaar u noqday inaan duubo muuqaalkaas marka aad dhamaysato waxaad halkan kala bixi doontaa xog dhammaystiran marka aan ku soconno waa maxay Memo Cion haddii aan ka jawaabno Memo Cion waa nooc ka mid ah cryptocurrency-ga oo inta badan loo isticmaalo ujeedooyin madadaalo ah ama maaweelo marka ujeedooyinkaas oo ah maaweeladaas oo ah ciyaar ama si degdeg ah loo kasbado lacag badanaana waxa ay ku salaysan yihiin sheekooyin internetka la soo geliyo meelaha X-ka iyo Twitter-ka iyo meelahaas ay la soo geliyaa mana laha wax adeeg ah oo dhab ah sida cryptocurrency-ga kale ee ay ka mid yihiin Bitcoin iyo Ethereum marka qaabkaas oo kale ayay u shaqaynaysaa marka Memo Cion ayaa la soo gelinayaa meelaha X-ka kadibna Android-ka ayaa lagu yaacayaa kadibna halkaas ayaa lagu kala goosanaya oo lagu kala qadaynayaa astaamaha lagu garan karo haddaba Memo Cion-ka ayaan sharxi doonaa lacag aan lahayn adeeg dhab ah ma leh horta adeeg dhab ah oo laskuma hadlayn karo sidan kriptada caadiga ama kriptada caadiga sida XRP-da badanaa la abuuraa iyadoo aan lahayn ujeedooyin muuqda dhaqso ayay u korodhaa oo qiimaheedu si degdeg ah ayuu sare ugu kici karaa ama hoos ayuu u dhici karaa sameeya bulshada qiimaha Memo Cion-ku wuxuu inta badan ku xiran yahay xiisaha bulshada iyo xayeysiinta baraha bulshada waxaa laga heli karaa blockchain-yada caanka ah waxaana lagu sameeyaa blockchain-yada sida Ethereum, Binance iyo Smart Chain kuwaas ayaa iyaga kuwa kale laga blockchain-yada sida blockchain-yada oo kale ayaa la heli karaa laakiin mararka ay la soo shaacinay waxa la soo geliyaa website gaar ah kuwaas ayaana laga gataa tusaalooyinka caanka ah sida Memo Cion-nada caanka Dogecoin oo Doge loo soo gaabiyo oo ku dhisan Solana oo ku jira website-kan Dex oo aan xagga dambe aad ku qaadan doonto Shiba oo ayaa kamid ah waxa kale oo kamid ah Bybit kuwaas ayaa Memo Cion-nada ugu caansan kamid ah waaladada loo isticmaalo waxaa kamid ah Phantom iyo Twitter iyo qaar kale oo badan oo aan ku sheegi doono muuqaalka xagga dambe aan ku sheegi doono marka qaybtan intaas ayaan ku dhaafayaa hadda waxaan geli doonaa qaybteena mobile-ka aniga oo ku sharaxaya telefoonkaaga si aad xog badan u hesho waxaan ka bilaabi doonaa Phantom wallet loo samaysto waxaan kaloo aan ku xigsiin doonaa Phantom-ka sida lacag loogu soo shubto waxa kaloo aan ku xigsiin doonaa sida Memo Cion-nada loo soo helo ee loo soo baadho intaa marka aan dhammaystiro waxaan haddana mar labaad ku soo noqon doonaa kombiyuutarka si aan casharka halkaas kaaga sii wado ka doonayso inaad mobile ka tareergarayso ama barato Memo Cion-ka waxaad ka bilaabi doontaa oo aad la soo deji doontaa application kuwaas oo ka mid yahay Binance inaad soo samaysato ama Bybit oo fair ka soo dhigato Phantomna aad soo samaysato Gito terminal oo isna laga eego Memo Cion-nada X oo aad kala soconayso wararka iyo Memo Cion-nada cusub Doge screen-ka oo isna aad ka tareergaranayso marka Cion-ka la soo geliyo marka shantaas marka aad la soo degto sidan oo kale aad u samaysato ama aad u diyaar garowdo kadib waxaad samayn doontaa Phantom-kaas la soo degisaa marka Phantom-ka la soo degto kadib Phantom-ka ayaan buuxin doonaa marka Phantom-ka aan buuxino kadibna lacag ayaan ku soo shuban doonaa lacagtaasna waan ku tusi doonaa qaabka loogu soo shubto marka uu kuu soo dego open baad leedahay kadib open markaa tiraahdo waxaad samaysanaysaa account
akoonkana waan ku tusayaa qaabka loo sameeyo. Kadib san ayuu kugu soo baxaya, halkan ayaad tika saaraysaa, agree ayaad leedahay. Kadibna waxaad leedahay haddii aad early hore min hore u lahayd, haddii aad doonayso nooc cusub inaad samaysana kan ayaad leedahay create new. dib sidan ayuu kugu soo dhigaya. wuxuu ku leeyahay ma Gmail ayaad doonaysaa mise Versal wallet. marka Versalku waa marka aad wuxuu kuu soo diraya magacyo, magacaas ayaad save garaysanaysaa meel dhiganaysaa, waxaana ku noqon doonaa password aad ku soo gasho mar kasta. haddii ay kaa lumaana sidaas ayaad lacagtaada ku waayeysaa Phantomka kugu jirta. marka hadda anigu waxaan doonayaa inaan Gmail ku xidho, marka Gmailka ayaan ku dhufanayaa. kadibna haddii aad iPhone isticmaalayso kaas ayaad isticmaalaysaa sare buu ku yiri. haddii aad Android sidatana kan ayaad ku dhufanaysaa, labadan waa kala dooranaysaa. marka hadda Android wey mobilka ayay ku xiran tahay. marka hadda waxaan noo soo dhigi doonaa Gmail-yadeennii. hadda Gmailkan ayaan ku dhufan doonaa. marka Gmailka aan ku dhufto san uu qaatay wuxuu leeyahay X emailkan hore ayaad ugu samaysay ayuu leeyahay. marka anigu waxaan dooran doonaa tan hoose maadaama Gmailkayga hore uu isticmaali jiray. marka continue ayaan leeyahay, laakiin adiguna qaabka ayaa samaysanaysaa. continue ayaan leeyahay, kadibna continue marka aado waxaan ku xiri doonaa Gmailkayga. kadib wuxuu leeyahay passwordkaagii geli. marka passwordkayga ayaan gelinayaa, kadibna waxaan leeyahay continue. marka saas ayaan u samaysanayaa. saas ayaa u soo galay akoonkayga hore unbaa hadda lagu yiri. marka waxoogaa ayay qaadanaysaa, kadibna wuu ii soo furaya. wuxuu leeyahay ma finger ayaad doonaysaa inaad ku xirto maya baan leeyahay. next ayaan iska leeyahay maadaama aan degdegayo oo marka Memo Cion la soo shaaciyo aan ka gaarsiinayo dee filter iyo waxaas macleelay. marka get ayaan leeyahay. hadda akoonkayga saas ayuu enable ka yahay. kadibna arrow ayaan leeyahay, kadibna continue ayaan si leeyahay. haddaan doono magaca u samayso ayuu leeyahay, laakiin waxaan kasoo noqo. kadib intan ayaa hadda mar hore lacag yar baan isticmaalay oo igu jirtay. kadib marka aad doonaysa haddaba inaad Phantom lacag ku soo shubto, waxaad doonaysaa inaad soo qaadato akoon kan ayaad ku dhufanaysaa saloonada. marka hadda qaybtani waa qaybtii saloonada. hadda akoon labaad doonaysaa inaad ka samaysto, akoonka labaad xagana ayaad ku dhufanaysaa. akoonkana waxaad ka dhiganaysaa Ethereum. kadib marka muuqaal kale ayaan ka soo diri doonaa. Ethereum tana lacag sana ugu soo shubanaysaa. kolba midka aad lacag doonaysaa inaad ku soo shubato ayaad lacag ku soo shubanaysaa. marka hadda saloona ayaad ku dhufanaysaa. markaad saloona ku dhufato receive ayaad leedahay, address-ka ayaad qaadaya. marka address-ka waxa aan la tegayaa Binance-tayda oo lacag igu jirto. marka hadda waxaan soo galay Binance-taydii. marka hadda lacagtan USDT ayay iga tahay. marka waxaan ku tusayaa qaabka saloona la iibsado. trade ayaad tegaysaa, kadibna halkan ayaad ku qoraysaa saloona ayaad ku qoraysaa. marka lacagta waa inaad bedesho oo USDT-da iska iibiso, kadibna aad iibsato lacag saloona. kadib lacagta saas ayaan iibsaday 20 ayaan iibsaday saloona. lacagtaas saloona ayay noqotay sa arkaysaan. waxaana sitaa address-kaygii. hadda iyada ayaan ku dul dhufanayaa san lacagta withdraw u iraahdo oo aan saloonada ugu dhufto. kadibna withdraw ayaan sii leeyahay. kadibna waxaan sii leeyahay sign view. kadibna halkan waxaan gelinayaa address-ka aan sitay oo ku bilaabmayay. waana soo hubin karaa waa kan. waad iska hubinaysaa waayo lacag baa u diraysaa 2 ayuu noqonayaa. kadibna waa kan 2 halkan saloona ayaan ka dhigay. BNB-na waa ka dhigan kartaa, laakiin hadda wuxuu leeyahay uma shaqaynayso. laakiin lacagta marka aad la baxayso adigu USDT ay ku tahay BNB isticmaal si aan fee lagaaga jarin. marka hadda anigu waan isticmaalayaa next ayaan leeyahay. lacagta ayaan leeyahay withdraw marka iraahdo halkan ayaan taabanayaa. markaasaan lacagtaas saas ayay ku baxday. waa $8 oo u dhigantaa 0.13 saloona. marka lacagtaas saas ayaan ku diri doonaa. Phantomkayga ayay tegi doontaa. waxaan gelin doonaa halkan authentication-kayga oo ah security adag oo aad u samaysan karto. haddii aanad u samaysana isagana muuqaal ayaan kasoo diyaarin doonaa. soo arkaysaan lacagtaasi way darsantay. view halkan aan ka eegaya. marka lacagtaasi ay baxdo Phantomkeena ayay toos u tegi doontaa. marka Phantomka ayaan tegi doonaa. waxaan ku tusi doonaa qaybteena labaad.
sida arkaysaan waxa fantamkeeni soo gashay lacagtii aan soo dirsanay oo hadda soo gaadhay. Lacagtaas inay soo gaadhay haddana aad ka heli kartaa oo ka lacagta inay soo gaadhay. Marka hadda lacagtii aan ku soo diranay markaas salaana lacagteena hadda waa tan ugu jirta. Marka hadda waxa ku tusi doonaa qaabka Memo Coin-ka la soo shaaciyay looga faa'iideysto. Marka waxaan teginaa egg screen-ka ayaan teginaa haddii aan egg-ka ka helnana egg-ka ayaan teginaa waayo egg-ku waa meelaha la soo dhigo. Tusaale ahaan halkan ayaan ku qorayaa mid hore loo soo shaaciyay oo kale Trump oo kale markii la soo shaaciyay inta aad ka hesho baad tegi doontaa. Laakiin xaggan ayaa muhiim ah inaad barato kana muuqaal ayaan ka soo diyaarin doonaa. Marka hadda halkan marka aad soo gasho aad la soo degto marka ugu horeysa menu-gaaga waa halkan waa halka aad kaga qoranayso kaga xiranayso. Hadda marka waa jilis kuu soo dhacaya ama notification-kaasoo kuu sheegaya coin inuu soo galay cusub. Coin-anka ayaa lagu xidhaa. Marka halkan waxaa la saartaa kuwa aad u baahan tahay saartaa xidig. Marka screen-ka ayaa tegisaa kadibna waxaad tegisaa new kuwa soo galay. New-gana waa sii kala dooran kartaa oo halkan waxaad ka dhigi kartaa kuwii soo galay 5 minute oo trade ah kuwaas ayaad gelaysaa. kadibna mid ka mid ah hadda tusaale ku bixinaya inkastoo aan jecelahay inaan muuqaal diyaara oo kale aan ka soo diyaariyo isagoo mode lagu isticmaalayo qaybta labaad. Marka halkan ayaad ku dhufanaysaa kuwana iswooguna waa uu badan yahay oo adigana waa laga qadinaya marna adiga ayaa ka qadinaya. Marka hadda kan ugu horeeya aan ku tusi doonaa. Marka aad halkan soo gasho waxaad iska eegaysaa market cap-kiisa ayaad eegaysaa. waxaad eegaysaa VDB-giisa liquidity-giisa ayaan bias-kiisa kuwan ayaad value-giisa ayaad eegaysaa. waxaas oo dhan markaad eegto kadib halkan ayaad ka trade garaynaysaa oo halka hoose. Haddaba adsaankan xabadiisa waxay u dhigantaa intaasoo dollar ah ay u dhigantaa. Marka isna sidan oo kale unbaa linkigii underice-ka unbaa lasoo qaadaya. Underice-ka waa halka yaala. Marka underice-ka san ayaad ku dul leedahay. Markaan koobiyeeyo kadib waxaan tegayaa Telegram-keena. Waxaan tegayaa Telegram-ka kan oo isna kaa hubinaya waxaad trade garaynayso inuu yahay mid sax ah oo la isku halayn karo. Hadda isaga ayaan u diray isaga ii soo sheegaya. Haddaba harkisaan mid hore aan u diray halkan no freeze kuma taalo. Marka aan no freeze waxa isku olin kaasi waa joogo oo lacagtaada la rabo in laga qaato. Laakiin no freeze marka ay ku taalo lacagtaada waad kala bixi kartaa. Laakiin kan oo kale hadda kuwa xalay aan trade garaynay way kon laakiin lacagta ayaa lagaaga dhigayaa markii san oo kale kuu soo baxdo. Laakiin haddii no freeze hadda kuu soo baxdo waa ansax. Marka haddii uu ansax yahay maadaama magaciisana halkan aad ku arkayso marka isna halkan market cap-kiisa ayaa kala soconaysaa. Holders-kiisa waa waxaa ku jira 4630 market cap-ka waa kan liquidity-gina waa kan saacadaha uu jiray waa 39 minute oo kaliya jiray. marka kan oo kale ayaad gelaysaa oo aad trade garaynaysaa. waxaad tegaysaa Phantom-kii kadibna waxaad Phantom-ka marka sidan u joogto home-ka waxaad tegaysaa halkan dhexe oo kala wareejinta swap-ka loo isticmaalayo. marka halkan waxaad ka dhiganaysaa sare salona. halkan ayaa furaysaa oo ku dhex dhufanaysaa kadibna halkan searching-ka ayaad underice-kii aad soo heshay ee Memo Coin-kii la shaaciyay ama aad ka soo heshay meesha aad ku searching garaynaysaa. hadda kan waan isku searching gareeyay waa kan markan searching gareeyay ayuu ii soo baxay. kadib waxaan leeyahay 0.001 waa tusaale qaabka loo sameynayo marka trade-kii loo sameysanayo. intaas waxay u dhigantaa hadda 0.20 ayaa aad ku galaysaa 0.20 ayaad ku galaysaa senti. waxaana hadda noqotay anigu ku jira 20 sweep ayaan leeyahay. kadibna waxaan leeyahay waan awoodaa continue kadib uu wareegaya lacagtaas swap way kala wareegaysaa uu cancel buurin wuu diiday. marka mar kale ayaan ku celinaa haddii uu diido. warkastan uu qaatay. marka hadduu qaatay markuu qaato san oo kale ayay kuu soo baxaysaa. kadib home-ka ayaad tegaysaa. waxaad halkan aad ka eegaysaa kii aad iibsatay. waxaan ku iibsaday 20 senti hadda waqti loo marayaa 23 senti. kadib markaan doonayo inaan lacagtayda kala baxo halkan ayaan ku dhufanayaa swap ay ku qoran tahay. kadibna
kii aan lacagta markii hore geliyey ayaa hadda weli sidii u hooseeya. Marka kaasaan saraysiinaya, halkan ayaan ka kala wareejiyey. Markaan kala wareejiyo halkan waxaan gelinayaa, halkan ayaan taabanaya heeri ay ku qoran tahay. Kadibna waxaa wada gelaysa wixii aan dhigtay oo dhan. Hadda kor ayuu u socdaa sida arkayso oo 23 ayuu marayaa. 23 senti ahayd hoos ayuu u socdaa. Marka 23 senti ayaan hadda marayaa lacagtaydii. Waxaa halkaa ka dhacaysa inay daadatay. Marka shaashadda ayaad kala soconaysaa oo shaashadda ayaa muhiim ah markasta inaad kala socoto. Marka wuxuu leeyahay high price impact. Hadda lacagtayda waxay sii maraysaa 19 senti. Marka khasaarihiisa u badan. Marka isku ayaan iska leeyahay hadda 20 ay kusoo noqotay oo kor ayuu yar kacay. Markasta khasaarihiisa ayaa badan, laakiin Memo Cionnada la soo shaacay ee aad looga warhayo marketkiisa iyo wax walba ay fiican yihiin ayaad sana oo kale uga samaynaysaa oo aad ka qaraabanaysaa. Marka halkan inta aad iska xiraysana halkan ayaa taabanaysaa. Kadibna lacagtaadii waxay kuugu soo noqonaysaa Sidee Phantomka ayay kuugu soo noqonaysaa. U diiday markasta u diiday ood ku yar celinaysaa, waayo adigoo aan marna kala bixin badoo lacagtii ka soo cesheen ay lacagtaadu iska dhammaan kartaa. Markaa saas oo kale ayaad ugu yar celinaysaa, ugu yar adkaaday 18 bay lacagtan maraysaa. Marka qaybtan iyadoo si fiican aan kuugu sharaxayo waxaan kuugu tusay laptop. Imikana waxaan guda geli doonaa qaybta laptopka. Waxa kale oo aan kasoo diyaarin doonaa ababka botska iyo screenka iyo website-ka dhammaan waxaan kasoo diyaarin doonaa cashar gaar ah. Marka qaybta laptopka ayaynu gudbi doonaa. Marka doonaysa haddaba inaad laptopka isticmaasho, waxa halkan aan kuu soo qaaday dhowr website-kaas oo la yiraahdo Dex Screen iyo Dex Tax iyo kan kale oo isna ah kaasoo ah Telegram botkaas oo aad ku dhigan karto. Markaasna la yiraahdo Blue X bot, kaasna wuu jiraa. Kan kale waxaa jira Nova bot ayaa isna jira oo isna aad waalidkaaga halkan ku shuban karto lacagta. Kadibna aad ka trade garaynayso Memo Coinska dhammaan halkaas aad ka trade garaynayso. Marka hadda waxaan ku tusi doonaa qaabka looga trade gareeyo Dex Screenka. Marka hadda halkan waxaa ku jira Geniuskan. Marka aad joogto Dex Screenkii, marka Geniuska aad joogto waxaad dooranaysaa markaa Solana waa tan. Halkan markaas ugu dhufato waxaa kuu soo baxaya dhammaan Memo Coinska ama tokenska ku dhisan Solana. Waxaa halkan ku jira BSC iyo Ethereum iyo Ku Soo ayaa iyaguna ku jira. Marka kuwan oo kale weey. Marka halkan filterka ayaad tegaysaa. Kadib halkan filterka ayaad soo nidaaminaysaa. Market cap-ka waxaad ka dhimanaysaa oo kale waxaad leedahay ugu badnaan halkan 1000 baan ka dhigtay liquidity-ga. Market cap-kana waxaan ka dhigan karaa 50,000 kuwa gaaray iyo soo xul. Halkan waxaan leeyahay timekii ay jireen sida mobilka ku soo sheegay. Halkanna 2 baad ka dhigaysaa, halkanna 1 baad ka dhigaysaa. Marka waa intan kale saas ay iskaga dhaafaysaa. Kadib isaga ku soo xulaya halkan 5 minute ayaa tegaysaa markaas. Kadib 5 minute marka tagto waxaan ku celin doonaa intii. Halkan waxaad ka dhigaysaa 1000 iyo gelinaysaa liquidity iga dhig. Market cap-ka waxay iga dhig leedahay 50,000 iga dhig ayaa leedahay. 50,000 marka lagaaga dhigo market cap-ka halkan waxaad leedahay period age-ka ay jireen. Marka 2 ilaa 3 baad ka dhigi kartaa. Appdate ayaad leedahay. Marka hadda 5 minute ayaan joogaa. Hadda kuwan ayuu ii soo qabtay. Marka hadda kan oo kale hadda buy waa loo gelayaa. Asla arkaysan hadda minus ayuu noqday. Marka halkan ayaad ka eedaysaa. Kadibna waad ku dul dhufanaysaa. Marka Phantom ayaad ku soo xiranaysaa. Phantomkana xaggan ayaad ku qoraysaa, Google-ha ayaad ku qoraysaa Phantom ayaad ku qoraysaa. Marka laptopka isticmaalayso Phantom wallet marka ku qorto kan ayaa dooranaysaa extension ay ku qoran tahay. Kadib markaas halkan ayaad ku soo dhufanaysaa. Kadib marka aad ku soo dhufato sidan hadda anigu ku daray, adigu halkaas ayaad leedahay cad. Kadib marka ku darto halkan ayuu ku soo furaya.
kadib marka uu kuu soo fuulo ani waalidkan hadda uu ii samaysan yahay marka waalidkanna waa ku tusisaa loo sameeyo hadda wuxuu leeyahay geli passwordkaagii passwordkay ayaan gelin doonaa kaydii baan geliya hadda waxay igu jirta lacag marka kanna waan ku tusi doonaa qaabka aad u samaysanayso marka halkan Solana ayaad ku dhufanaysaa kadib Solana markaad ku dhufato receive ayaad leedahay sidii aan u soo dhignay qaabkii mobilka oo kale ayaad u soo dhiganaysaa copy ayaad leedahay kadib markaad copy tiraado lacagtaas saas ay kuugu jirtaa oo arkaysaada aniga Solanadayda waxay igu jirtaa lacag $26 ayaa ku jira oo Solana marka oo arkaysaan markaasan ayaan halkan ugu soo darsanaya halkan si aan markasta halkan ma furaya kadibna waan ku trade gareynayaa waan ku tusi doonaa qaabka loogu trade gareynayo marka dexka ayaan waxaan ku soo noqonayaa kaygii halkan joogay kan ayaan ku dulfanayaa kadibna wax badan ayaan iska eegayaa si laftiisa markaan ku dulfto kadib waxaan eegayaa holderskiisa ayaan eegayaa snaberiska waa dadka iska leh coinkan ee dhisay waana dadka soo gelinaya lacagta marka snaberiska lagtooda waa fiirinaysa holderska hadda ku jira waa 49 qof dadka kuwan oo kale lama galo waayo arkaysan halkaas ayaa laga kaxeeyey halkan ayaa laga dhaqaajiyey hadda kor ayuu u socdaa laakiin waxaa dhici karta adigoo halkaas marka saa uga gasho in suuqa saa loo soo daadiyo isla markaaba in suuqa la soo daadiyo kadibna uu suuqa hoos tago markaaba uu suuqa hoos u daato adigoo aan waxba ku jirin halkaana aad ku khasaarto marka san oo kale loo daadiyo oo hoos u aado halkii aad ka sugaysay waanu karaa inuu kor u sii socdo marka hadda geli mayno laakiin waxaan raadsan doonaa Memo Coin fiican marka Memo Coinka aad doonayso haddaba inaad iska sii eegto waxaad tegaysaa oo aad iyadana waa bot aan kuugu soo diri doono qaybtan telegramkeena kaalay telegramka ayaan kuugu soo diraya telegramkeena weyn marka halkan ayaad ku dhufanaysaa waxaad tegaysaa safe analyze bot waxaad iska eegaysaa no freeze inuu yahay oo lacagta lagala halka haddii no freeze yahay Memo Coinka marka aad iibsato lacagta waad kala bixi kartaa marka Memo Coinka aad iibsato marka hadda kan ayaan tusaale ahaan san usoo qaadaysaa halkan ayaa underskiisa ka soo qaadaysaa underska marka soo qaado kadib aad timaado halkan waxaad ku dhufanaysaa halkan ayaad basti ku leedahay kadib saas ayaan ugu odhanayaa kadib isaga ay soo jawaabaya wuxuu leeyahay waa no freeze buu leeyahay market cap xaggan aad ka eegi kartaa holderska ku jira waa 146 liquiditygiisa halkan ayaad ka eegaysaa ownerka dhisay halkan ayaad ka eegaysaa underskiisa waa kan waa kii aan iminka isku koobiyey liquidityga halkan ayaad ka eegaysaa waa 2000 halkan valuegiisa iyo inta uu jiray ayaad ka eegaysaa agekiisa waa 12 telegram inuu leeyahay halkan aad ka eegaysaa marka waxaa muhiim ah socialku waa muhiim Memo Coin haddii aad trade garaynayso waa inaad eegto saddexdan oo Memo Coin dee la samaysan kari waayey saddexdani maaha wax sidaa u sii weyn oo dee shaqo badan ayaa u dhiman marka kuwaasoo kale lama trade gareeyo marka telegramka ayaad ku dhufanaysaa website-kooda ayaad eegaysaa Twitterkooga ayaad eegaysaa ama X-kooga marka markasta aad Memo Coinka isticmaalaysana waa inaad Twitter leedahay ama X aad leedahay marka hadda halkan waan fiiriyey keliya waxaan eegaya oo muhiima no freeze waxaa jira qaar aan no freeze ku qornayn marka kuwa lacagta kalama bixi kartid haddii aad trade gasho oo lacagta way kaaga dhigayaan marka hadda waa arkayaa inuu marka underskii weli waan sitaa marka phantomkayga ayaan tegaya markaan doonayo inaan trade gareeyo marka hadda kan waan baaraya dib ayaan ugu noqonaya suuqa marka mid kale ayaan dooranaya marka anigoo hadda Solana kan waa dex screen oo isticmaali kartaa waxaad ku xiranaysaa gmailkaaga ayaad ku samaysanaysaa kadib saas ku ahaanaya markasta oo wax ka bedelaysaa marka qaybtan hadda 5 minutes ayaan tegayaa liquidity waxaan mar kale soo buuxin doonaa kan kalena waa isticmaali kartaa dex ay ku qoran tahay isna waa dexkoo kale unbuu la mid yahay Solana ayaa tegaysaa magaciisu waa kan halkan ku qoran Gecko terminal ayaa la dhahdaa marka isna halkan ayaad ku dhuftay waan furay kan ayaa aad ugu yar wanaagsan xagga shaqada oo kale filterka ayaa tegaysaa kadib waxaad halkan ku qoraysaa liquiditygiisii kun ayaan dooranayaa feedigiisana kun ayaan dooranayaa isna halkan waxaan dooranayaa timeka uu jiray oo kale ayaan dooranayaa 2 ilaa 3 baan ka dhigayaa safe ayaan leeyahay marka wuxuu ii soo xulayaa tokens ayuu ii soo xulayaa hadda kan ayuu ii soo xulay kadib marka uu soo xulo isla markaan saa ugu dhufto
halkan shaashadan ayaan iska akhrisan karaa. Markaan saa qaato underskiisa ayaan qaadanaya, kadib waxaan tegayaa Telegramka ayaan tegaya, kadib halkan ayaan horta kusoo hubinaya inuu yahay mid fiican oo lacagteeda aan hadhow haddaan Gareeyaa aan kala bixi karo. waa no fariis weeye. Halkan ayaan ka eegaya market holderskiisu waa 1780 holders fiican ayaa Gareeyaa market capkiisu waa intan 107 liquiditygiisu waa kan. Marka kan oo kale uu fiican yahay waayo arksan halkaas ayaa hoos ayaa loo wadaa, laakiin waxoogaa ayaa yar sugaysaa. Marka underski hadda waan sitaa, halkan ayaa underska markasta ka qaadanaya, kadib underska waan qaatay, kadib waxaan tegay Phantomkayga ayaan tegay. Phantomkayga marka aan tegay Phantomkii ayaan tegay halkan. Marka Phantomkayga ayaan tegay halkan ayaan ku dhufanayaa dhexe, kadib markaan ku dhufto labadan ayaan kala wareejinayaa waayo Solana ay la igu jirtaa. Halkan waxaan gelinayaa underski aan sitay ayaan gelinayaa, halkan ayaan basti underski ku leeyahay. Waxa ii soo baxaya magaca halkan ku qoran oo xagan iga soo baxay, magacan ayaan ku dhufanayaa, kadibna waxaan leeyahay waxaad ii gelisaa 0.001 hadda ma gelayo laakiin waa tusaale. Marka halkan ayaan swap leedahay. Marka waxaan eegayaa bal horta dhaqdhaqaaqa suuqa, wax badan baan hubinayaa. Holderskii ayaan iska hubinayaa. Marka holderska xagan aan kala soconaya holderska waa kuwan, xagan holderskan ayaan aad u hubinayaa inay badan yihiin. Waxa kaloo aan eegayaa halkanna waan tegi karaa oo kanna waan ka eegi karaa. Marka kan ayaa inta badan labadaba waad ka wada eegi kartaa. Waxa kaloo isna jira bot aan idin sheegay mar hore oo yiri soo dhow isticmaalo oo isna la soo dega oo buuxbuuxsada. Waa kan Blue Eggs ayaa la yiraahdaa bot kaasa login ayaad leedahay marka ugu horeysa. Maalmaha ugu horeeya sidan ayuu kuugu soo diraa fariin sug maalmaha ugu horeysa. Marka ugu horeysa tiradan ayuu kuu soo diraa, tiradan ayaad ku bilaadahay isagaad u diraysaa, kadibna wajahadan ayuu kuu soo furaya. Wajahadan ayaad leedahay login, kadib login markaad tiraahdo halkan ayaad open sii leedahay, kadib open markaad sii tiraahdo wuxuu soo furmayaa, wuxuu kuugu xirinayaa Telegramka aad isticmaasho. waa kan Telegramkayga hadda igu xiriirin doonaa. Kadib marka uu igu xiriiriyo Telegramka 3 qaybood ayuu u qaybsamaa. Isagu wuxuu kaga fiican yahay halkan oo arkaysaa, halkan ayaad ku dhufanaysaa. Marka halkan kuwan kale waa iska wada xiri kartaa, imika kuwan waa iska wada xiray. Marka aan Solana ayaan isticmaalayaa, taas un baan isha u deysanayaa, kun kale waan iska xirayaa. Star ayaan leeyahay, kadib halkan ayaan tegayaa new berries ayaan ku dhufan karaa, laakiin xagan ayaan hadda markaan ku dhufto marka xaga ku dhufto waxaan tegayaa bam versionka ayaan tegayaa, waana halka Memo Coinska lagu soo dhiso. Saddexdan ayay u qaybsantaa hadda new kuwa hadda cusub iyo kuwa lagu wado dee awood aan qalin jabin weli iyo kuwa qalin jabiye. Marka mid kasta filter ayaan ku xiray. Halkan baan tegay filterka waxaan ka dhigay halkan horta marka koowaad ayaan kasoo labadaas saxday. Waxaan leeyahay at least waa inuu lahaado one social, waa inuu hal social lahaado. Halkan liquidity-ga waxaan ka dhiganayaa 1000 ayaan ka dhigay. Value waxaan ka dhigay 40,000 halka 3,000 waad ka dhigi kartaa, 50,000 waad ka dhigi kartaa. Si market cap-ka markaa suuqa saa loo soo geliyo aad uga qabsato Appdate ayaad leedahay, kadib hadda kuwan ayuu kuu soo xulay. Marka waxa jira age-ka waad eegi kartaa, isagana lacag waa lagu shuban karaa oo waa bot fiican, laakiin fiidiisa ayaa badan. Adiga waxa kuu fiican inaad Phantomkaaga iska isticmaasho. Waxa kale uu kaga sii fiican yahay waxaad halkan ka arkaysaa kuwa dhafka iskale nimanka dee markay soo galayaan ayaad kala soconaysaa. Hadda suuqan kor ayuu usii socdaa saan arkayo. Marka underskan ayaan qaadanayaa, kadibna Telegramkayga ayaan tegayaa. Telegram marka aan tago waxaan leeyahay xagan basti igu dha markasta waa iska hubinayaa. Marka waa sax buu yidhi. Marka no freeze inuu yahay ayaan hubiyey, kadib waxaan tegayaa Phantomkayga ayaan tegayaa. Kadib Phantomkayga marka aan tago arkaysaa inuu soo noqday. Halkan traderska ayaad kala soo holdersku waa 500 arkayso waa 575 kor bay u socdaan markasta.
marka holdersku waxay iskugu jiraan sell iyo buy ay iskugu jiraan labadaba. Halkan traderski way waxaad kala soconaysaa traderska marka qof baa hadda buy yidhi waa arkaysaan, qof ayaa hadda sell yidhi, qof kale buy yidhi, hadda sell yidhi, hadda saas u wadayaan waa holderski. marka waxaa jira website-kan mar kale cashar gaara kasoo diyaarin doona sida lacagta loo dhigto, sida lacagta loogu shubto waa Phantom ahaan aad u isticmaali karto adigoon Phantom isticmaalin isaga aad lacagta ku shubanaysaa. laakiin hadda suuqa waa soo daatay marka waa iska noqonayaa, marka mid kale ayaan kan kale ayaan tirgelayaa, marka kan ayaan eegayaa. waa arkaysaan kan laftiisu waa fiican yahay laakiin hoos ayuu u socdaa waayo xilliga hadda suuqa ku jiro baan ahayn xilli saxa oo aan eegayo, laakiin waxaa jirta xilliyo saxa mar halkaa ka dhaqaaqo oo kale ayaa tegaysaa ilaa halkaas inta gaarayo, markii dambena uu soo daatay haddana kor ayuu kacay, marka markaasoo kale laga faa'iidaysanayaa. hadda waxaan dib baari doonaa oo aan kusoo noqon doona xaggan hadda kaa u soreeya. waxaan baari doonaa hal suuqo aan tusaale ku bixiyo marka suuqa sida lacagta Phantomkan markaan isticmaalayo, marka kan ayaan geli doonaa. markasta waxaan isticmaalayaa telegramkaas aan adii soo dhigay, kadib isaga aan markasta geynayaa oo aan basti ku leeyahay. markaan ku raado kadib wuxuu ii soo dhigayaa uu jawaab buu isiinaya, markaa wuu soo jawaabayaa no fariisooyi. suuqan mar kor ayuu kacayaa mar hoos ayuu soo daadanayaa, waana suuqa isku dhow dhow oo si aan kor u kacayn ma arkaysaan noo soo daatay kor buu u kacay, laakiin maaha suuq in badan oo kacaya oo dee faa'iido samayn kara. oo suuqa isku dhow dhow kandhaladiisu marna kor u kacaya marna hoos marna ka, marka dadkan sniperskan ayaa marna gelaya marka baxaya mar gelaya. sniperska xaggan aad kala socon kartaa astaamo gaaray leeyihiin waan ka sharixi doonaa, marka muuqaal kale ayaan ku sharixi doonaa oo faahfaahsan. marka hadda waxaan raadinayaa hal Memo Cion oo fiican oon ka faa'iidno oo aan faa'iido ka samayno. filterka ayaan ku noqon doonaa oo filterka hadda waxay isnayn marka filterka ayaan buuxin doonaa, markasta filterkan waad buuxinaysaa, laakiin kan kale ee hadda ku jiray bull egaskan isaga mar un baad buuxinaysaa. hadda kan fursad baa ka bannaan kor ayuu kacay waan ka faa'iidaysanayaa saabii tuso kaniga xidh. marka Phantomkayga ayaan soo galay oo lacag igu jirto. marka kii hore ayaa ku jira, markaasan ayaan leeyahay halkan si degdega maadaama suuqu kor u kacay waan ka gaarsiinayaa, kadibna halkan waxaan gelinayaa 0.001 oo kale adii tijaabo un baan gelinayaa $2 bay u dhigantahay iyo 2 senti anigana waxaada. marka waxaan soo eegi doonaa suuqi ayaan ku noqonayaa, kor ayuu u socdaa soo arkaysaan, saas ayaan swap now ku leeyahay. kadib oo arkaysaan marka uu ii soo jawaabayaa wakaasoo kor ayuu u socdaa u gaadhay halkii uu gaadhayay, marka imika haddana hoos ayuu u soo noqonayaa, laakiin waan ku jirayaa waxoogaa ayaan ku jirayaa saa ula socotaan. kor ayuu u socdaa waxaan eegayaa bal inaan faa'iido ka sameeyey. markaan saa u galo kadib wuxuu ku soo biirayaa qaybtan homeka ayaan imanayaa, halkan ayuu ku soo biirayaa maadaama aan iibsaday. kadib swap ayaan si leeyahay, kan ayaan wareejinayaa xagga sare geynaa negas ayaan leeyahay si aan u arko faa'iido inaan ka sameeyo oo arkaysaan
$1.99 ayaan soo galay wax faa'iido weli ma hayo laakiin waan eegayaa xagan ayaan kala soconayaa waa arkaysaa inuu kor u socdo meelahaas ayaan ka galay waa arkayseen marka haddii uu kor u sii socdo faa'iido ayaan ka hayaa marka hadhow waa ku tusayaa sida looga degay maadaama hadda soo noqday halkii aan ka galay ayuu ku soo noqday saa arkaysaan marka waa tijaabo unbaa sameynayay laakiin kor ayuu uga kacay waa arkaysaan $1.99 kusoo galay $2 buu sii marayaa saa arkaysaan sanaatiir baa ku biirtay laakiin waa iskaga jirinaa ilaa ama aan faa'iido ka helayno ama aan ku khasaarayno marka Memo Cion-ka aad khasaarihiisa u badan marka waxyaalaha la shaacinayo unbaad sidan u samaynaysaa oo aad ka faa'iidaysanaysaa marka waxaa dhici karta imka anagoo ku jirna inuu si degdeg u daato oo halkaa tago isla wif oo idhaahdo oo ay nooga baxaan dee dadkan tareegaraynaya oo u badan snaverska ayaa markasta suuqa ka awood badan dadka ku jira aad bay u yaryihiin waa 1,150 ayuu maraya dadka hadda ku jira markastay dadkan kordhaan suuqa kor ayuu u soconayaa haddii ay buy noqdaan dadkan soo gelaya suuqa weli wax faa'iido ah kama hayno maadaama halkii aan dib ugu soo noqday markaas uu dhaafay haddana kor ayuu u kacay una waabi hadda mid cusub waa furmay kanal cusub saarkastaan kanal cusub waa furmay haddana kanalkii wuxuu ku soo noqday halkii aan ka galnay marka Memo Cion-ku khasaarihiisa aad u badan yahay laakiin marka egaska oo kale laga soo shaaciyo Memo Cion-kaas ayaad ka faa'iidaysanaysaa adigoo lacag fiican dhiganaya hadda waa arkaysaan kor ayuu u socdaa hadduu meelaha gaadho iskaga baxi doonaa hadduu halkaa gaadho faa'iido meelahaasaan ka haynaa hadduu $3 meelaha $1 oo kale ayuuna siinayaa saas faa'iido uga haynaa laakiin waxaan sugaynaa inuu bal halkaa dhaafo $2.11 ayuu marayaa waxaana ku soo galay $1.99 marka inta fiidiina laga jariyay markaan kala wareejinaba maaha marka waan ku jiraynaa ilaa halka targetkeeda aan dhigtay uu gaarayo marka waa loo samrayaa oo arkaysaan halkii aan gaadhiganayay ayuu gaarayaa in yar ku socdaa oo arkaysaan $2.06 $2.12 $2 lacagtiin waxay noqotay $2.13 ayay noqotay $2.07 marka sweet baad leedahay marka kan saloonada markii hore saraysay laakiin kan lacagtu taalaa saraynaysa markasta ku qaldamin halkaasna iska ilaali marka sweet ayaad iska leedahay marka waxaan eegaya suuqaan eegno suuqa halkii uu soo noqday marka intaan nagu daadan baa iskaga baxnaa si lacagtiina uga saarano waxaan leenahay sweet ayaan leenahay waayo suuqan hadda layskuma hadlayn karo oo maaha suuq faa'iido fiican ku siinaya laakiin suuqyo wax jira dhan waan iska xidhay lacagteeda intii weeyaan wax faa'iido hadda kama samayn laakiin adigaan ku tusiyey marka hadda waxaan muuqaal dhammaystiran kasoo diyaarin doonaa geedko terminal iyo kan dex screen si fiican kuugu sharaxayo waxa kaloo aan cashar kasoo diyaarin doonaa bodkan safe analyze bot oo kale oo isna waxaa jira isagoo aad lacag ku shubanayso oo andareyska aad san uun basti ugu leedahay kadibna isagu ku gadayo isaguna aad faa'iido ka samaynayso sida noofa oo kale waalid ayaad samaysanaysaa kadib waalidka marka aad create waalid ka samaysato lacagtii saloonada ayaad ku shubaysaa kadibna isaga ayaad buy and sell ka leedahay hadda menuga halkan oo kale igu soo celi waa ka snaveriska ii sheeg baad leedahay copy trade-ka iisoo copy trade baad leedahay buy ayaad leedahay kadibna sell ayaad leedahay labadaba uu leeyahay marka setting-kan ayaa laga saxdaa
noo fadan hana muuqaal kale ayaan kasoo diyaarin doonaa. Muuqaalkan like inoo saara. Muuqaalkaas halkaas ayaan kusoo gabagabaynayaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.